kulankan oo ay hay'adda culimada Soomaaliyeed ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kaga hadleen dhibaatada iyo saameynta uu ku yeeshay dagaalka ka soo cusboonaaday deegaanka Tukaraq kaasi oo saameyn ku yeeshay qoysas ku nool deegaanka Tukaraq oo ay ku dagaalameen laba beelo walaalo ah waxayna ugu baaqeen beelaha ku dagaalamaya deegaanadaasi inay joojiyaan dagaalka. kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta hay'adda culimada Soomaaliyeed culimo-diin waxayna baaq u direen culimo-diinka iyo maamulada ka arrimiya deegaanadaasi iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed inay u istaagaan sidii ay u joojin lahaayeen dagaaladaasi. gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa akhriyay bayaan ay ka soo saareen kulankooda oo ku saabsan dagaalka ka soo cusboonaaday deegaanada Somaliland iyo Puntland. baaq culimada Soomaaliyeed ee ku aadan khilaafka Tukaraq. hay'adda culimada Soomaaliyeed ayadoo gudanaysa waajibka ka saaran ilaalinta danaha ummadda Soomaaliyeed kana duulaysa ahkaamta iyo ujeedooyinka shariicada islaamka kana walwalsan colaadda ka alowsan deegaanka Tukaraq una naseexaynaysa walaalaheeda Soomaaliyeed waxay soo saaraysaa baaqa soo socda. culimadu waxay u soo jeedinayaan madaxda Somaliland iyo Puntland inay khilaafkooda xalliyaan si nabad ah, ilaahayna subxaanahu wa tacaala uga baqaan daadinta dhiigga muslimiinta Soomaaliyeed ee colaadu ragaadisay una dhaganuglaadaan baaqyada nabadeed. qaala tacaala fattaqullaha wa aslihuu daata baynakum. culimmadu waxay ka digayaan cawaaqib xumada burburka iyo barakaca ka dhalanaya colaadaas ayadoo ay ka jiraan deegaanada duruufo adag loona baahan yahay in xoogga la saaro nabadeynta iyo horumarinta deegaankaas. culimmadu waxay u soo jeedinayaan dhammaan dhinacyada ishaya in ay joojiyaan abaabulka habarwacashada iyo dhammaan ereyada xanafta leh ee sii horinaya colaadda. nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay dacuuha fa innahaa muntina. waxaan soo jeedinaynaa in culummada salaadiinta abwaanada warbaahinta iyo dhammaan dadka ka shaqeeya samaha in ay isku howlaan in si degdeg ah loogu dhawaaqo xabad joojin, ciidamada la kala qaado, lana qabto guddi nabadeyn si loo gaaro xal waara insha Allah. Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ah hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhibaatada iyo saameynta uu ku yeeshay dagaalkaasi dadka deegaanka wuxuuna u soo jeediyay bulshada Soomaaliyeed iyo walaalaha ku dagaalamaya deegaanadaasi inay joojiyaan dagaalka. marka mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ku baaqaynaa madaxdana waxaan leeyahay mas'uuliyad idin saaran ilaahayna wuu idin weydiin maalinta qiyaamo. dadkaad madaxda u ahaydeen waxaad ugu taliseen haddaad dagaal ka taliseen oo madaxa isu geliseen iyo haddaad kala maslaxdeen oo dagaalkii hor istaagteenba inta sida baaqa ku jirta inta waxgaradka hadday culimo noqon lahayd hadday duqeyda dhaqanka noqon lahayd waxgaradka oo dhan waxaan rabnaa arrintaasi inuu u istaago oo wada hadal lagu dhameeyo meesha gacan hadal uu ka dhici lahaa in wada hadal lagu dhameeyo. Soomaalidu weligeed bageed bay tagi jirtay hawlaheeda ku dhamaysan jirtay sidaas hawlihii ha lagu dhameeyo. ilaahayna waxaan weydiisanaynaa sida aan jecel lahay oo nabadgelyo ah oo dhiig inuusan daadanina inuu arrintaa ku soo gabagabeeyo. Muuse Cusmaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.